gudoomiyaha degmada Duruqsi Cabdilaahi Gaabiyombi oo qaar ka mid ah warfideenada ugu warramay gudaha magaalada Burco ayaa ka hadlay raxmadka ee Beguga oo si rasmi ah ugu xurtay deegaanada degmada Duruqsi waxaanu yiri sida tan 12 magaalo ayuu buuxiyay waa 14 tuulo degmadu 12 buu buuxiyay saddex baa roob la alxamdulillah suucan uu uga xurtay suucan uu helay imkana xaalad waa wacanto daruurtu waa buuxda alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahayna waxaanu ka rajeynaa in ilaahay inta ka dhiman iyo mid ka saaidaba ilaahay u keenay sidoo kale gudoomiyaha degmada Duruqsi ayaa sheegay barakacayaal deegaankaasi ku nool oo ay haysato xaalad adag isagoo sheegay inaanay helin macaawinooyin ku filan isla markaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay si degdeg ah ula soo gaadhaan macaawinooyin waxaana ka mid ah hadaladiisii kaloo yaala qaxoonti 360 qoysa oo imka 9 bilood deganaa oo aan oran karo mar qura mar jaaleedo rufciyo u keentay mooyaane looma keenin waxa la soo gaarsiiyay ama hay'adaha haato ama xagga xukuumadda ha haato ma jirto halka waxaan dhibaato badan ayaa dadka naga haysata way anagaynu dul saareeyeen oo u wakiilo xukuumaddii jamhuuriyadda Soomaaliland u wakiila ayaynu dul saareeyeen runtii uma hadal darin umana qeylo yarin nasiib daro wali ma dhicin dadka in halkooda lagu soo xasuusto taana waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka waxaysa iyo xukuumadda inay dadka badil gaar ah ku soo eegto oo aan qabo inay kuwa ugu culayska badan yihiin way wax laga yaabaa kuwa kale ama kuwa kale ee ku deegaanada kale yaala in la soo xusay baa laga yaabaa laakiin iyagu xuslaan bay tirsanayaan taana waxaan leeyahay xukuumadda iyo hay-aduhuba deegaanka dadka qaxoontiga yaala bal hala yimaado oo hala eego oo si degdeg ah loo soo gaaro ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Duruqsi Axmed Cabdilaahi Gaabiyombi ayaa cabasho xoogan ka muujiyay maandooriyaha khamriga oo ku soo badanay magaalada xuduudeedka Duruqsi isagoo sheegay in aanay helin gaadiid ku filan si ay u soo qabtaan maandooriyaha khamriga soo gaaro ana laga soo gaaro waayo dib badan buu soo wadaa amnigu xumaado buu soo wadaa ciyaalkii yaraa oo laga iibinayo 5 laga iibinayo bac laga iibinayo oo jiilka dhimi baabaabuu soo wadaa taa waxaan leeyahay la fudaysan xukuumadda waxaan taafareynaa in naga soo gaaro oo hawsha ciidankana la soo xoojiyo gaadiidkana la soo xoojiyo degmada Duruqsi ayaa ka mid ah deegaanada ugu waaweyn ee hoos yimaada gobolka Togdheer waxaana deegaanadaasi ka jirin xarumo caafimaad mid amni iyo sidoo kale guud ahaanba baahiyaha oo liita Shaakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga RTN Burco.